Liaga waxaa lagu magacaabaa Cars White oo runtii u dhashay waddanka Mareykanka. Gabadhana waxaa lagu magacaabaa Shanaan oo iyadana u dhalatay waddanka Mareykanka. Waxay isku dhaleen laba caruur ah oo lagu kala magacaabo Bella iyo Celesta oo 4 sano jir. Bella 4 sano ayay jirtaa, Celesta waxay jirtaa 3 sano. Markaan ku laabto Cars White dilaaga weyn waxa uu dhashay 13 Agoosto 1985. xaaskiisa oo iyadana lagu magacaabay Shanaan iyadana waxa ay dhalatay January 1 sanadii 1984. runtii familkaas waxay ahaayeen famil aad u qurux badan oo runtii dadka deegaanka ee ka agdhawaa ama deriska ay sheegeen dad runtii aad u wanaagsan. ninka dilaaga lagu magacaabo Cars White runtii arintii uu sameeyay dadka deriska maysan ka filaynin. ugu dambeyn waxa uu sameeyay arin aad iyo aad u naxdin badneed oo dadkii deriskaba ay ka yaabisay. arintaasna kulay waxay dhacday sanadii 2018. wuxuuna isku dayay in uu nolosha u dhaafiyo. haddaba si aan muuqaalkaani min bilow ilaa dhamaad aad u daawato fadlan daawo muuqaalkan. assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. asxaabta meel kasta aad joogtaan waan islaamiyaa. intay maalin u tahay maalin wanaagsan, intay ay habeen u tahay habeen wanaagsan. waxaan doonayaa inaan kula wadaago sheekadaani aadka u naxdinta badan ee ka dhacda waddanka Mareykanka. bal marka hore sheekada familka aan idin la wadaago. familka waxaa lagu kala magacaabayay Cars White iyo Shanaan. Cars White waxa uu dhashay sanadii 1985. Shanaan iyadana waxa ay dhalatay sanadii 1984. familkaas runtii waxa ay isbarteen sanadii 2010. mid kamid ah magaalada Colorado ayay ku kulmeen. runtii waa isbarteen kadib xiriirkooda muddo badan muusan sii soconin oo yacni shukaansigooda muusan sii dheeraanin. kadib 2010 isla sanadkaasi waa ay isguursadeen. kadib waxay isku dhaleen laba caruur ah oo laba gabdhood. labada gabdhood waxaa lagu kala magacaabayay Bella oo 4 sano jir ahayd iyo Celesta iyadana jirtay 3 sano. runtii familkaas waxay ahaayeen famil aad u qurux badan oo kadib deriskii ka agdhawaa oo booliskii ay wareysteen iyo warbaahintaba ay la hadleen. arrinta dhacdo waxay ahayd marka Shanaan waxay ahayd gabar business woman ahayd. ninkeedana wuxuu ka shaqeynayay shirkad ku taala isla magaalada. sanadkii 2018 bilowgiisii Cars White ayaa waxa uu ka bartay gabar ka shaqeynaysay isla shirkadaas. gabadhaas ayaa waxa uu sameeyay xiriir hoosaad aysan ogeyn xaaskiisa Shanaan. kadib waxyaabaha lagu ogaaday waxaa ka mid ah ninka inta badan shaqadii marka uu ka soo baxo xaafadda wuxuu imaan jiray goor hore ayuu imaan jiray. laakiin xiriirka hoosaad markuu la bilaabay gabadha lagu magacaabo Cardina oo iyadana u dhalatay waddanka Mareykanka waana gabar aad u da'yareed. waxaa lagu qiyaasayaa da'deeda ilaa iyo 30 jir. kadib Shanaan waxa ay dareentay xoogaa ninkeeda in xiriir hoosaad uu la wado gabadhaas maadaama shirkadaasi dad ka shaqeeya ay gabadha Shanaan ay is yaqaaneen. kadib arrintii marka ay sii socotay xoogaa familkii buuq ayaa meesha ku yimid. Shanaan ayaa waxay weydiisay ninkeeda arrinta la sheegayo. wuxuu isku dayay inuu xaaskiisa uu xalliyo. kadib arrintii buuqii way sii dheeraatay. Shanaan wuxuu isku dayday inay ninkeeda ay kala tagaan oo runtii maxkamadda inay ka dacweyso. runtii wuxuu isku dayay inuu ka hor istaago waayo maxkamadda hadday tagto ninkan Cars White caruurtiisa dib dam uma arki doono. maxkamaddan waxay ku xukumaysaa in caruurtaasi agteeda ama agtooda uusan kasoo agdhawaanin. taasi si aysan u dhicin Cars White wuxuu la tashan jiray inta badan gabadha lagu magacaabo Cardina
oo runtii xiriir hoosaadkooda uu sii socday kadib ninka lagu magacaabo Caris arrintii uu sameeyay runtii dadka deegaanka oo laga wareystay maysan filayn horta waxa uu sameeyay waayo waxa lagu yaqaan nin aad u afgaaban nin aad u wanaagsan dariskana aad u xiriirin jiray kadib wuxuu isku dayay markii dambe in uu xaaskiisa dhibaato u geysto waxyaabaha kale la yaab kale waxay ahayd in xaaskiisa ay uur lahayd iyadoona inta badan gabadha marka ay uur leedahay inta badan ragga ay ka taxadiri jireen laakiin asi waxa uu sameeyay in xaaskiisaba uusan ka taxadirin oo dirdil badan u geystay taasoo sababtay in cunugeeda xataa la yiraahdo in macnaha uu meed u yahay taasoo sababtay in stress badan xataa ay qaado xaaskiisa Shanaan isku dhaca familka runtii saameynta ugu weyn waxay ku yeelatay caruurtay ku yeelatay sababtoo ah caruurta waxay aadi jireen iskuul aadi jireen iskuulku waa la geyn jiray waa laga soo kaxayn jiray caafimaadkooda waa laga fikri jiray laakiin qoyska markuu isku dhac u yimaaday oo labada waalid markay isku dhaceen caruurtii horta sidaas ay ku dayacmeen oo runtii cid dayac macnaha ama controlsha ama caafimaadkooda ka taxadirta aysan jirinba waayo xaaskii Shanaan macnaha waxyaabo stress iska haystay stress gabadhii maadaama ninkeeda uu xiriir hoose uu gabadhaasi la bilaabay iyo arintii kale ee ahayd in macnaha cunugeeda uu ka soo dilmay labadaas arin oo isbiirsada aawi in caruurteedaba ay hilmaamtay familka Shanaan oo arinta la socday ayaa runtii la tashatay oo marar badan ay isku dayday in arinta kala hadasho familkii ayaa isku dayay in ay xaliyaan laakiin arintii ay xalismi weeday kadib buuqooda marka uu sii dheeraaday waxaa meesha ka dhaca horta waxyaabo la yaab leh oo runtii wax la malaysan karin waayo booliskii markii meesha ay tageen waxay ku arkeen ama indhahooda ay qabteenba waxyaabo runtii aan halkan laga sheegi karin maalin maalmaha ka mid ah oo maalin khamiis ahayd waliba sanadku wuxuu ahaa 2018 xilli goor hore ah ayaa laga soo wacay xaafadda Colorado qof ayaa soo wacay oo dariska ka mid ah waayo wuxuu maqlayay buuqa ka dhashay labada qof ee Caris iyo xaaskiisa kadib booliskii markii la soo wacay oo kadib booliskii waxa ay sameeyeen in si degdeg ah ay xaafadii ku tageen kadib albaabkii oo xirnaa laga furi waayay gambaleelka garaacay waa laga furi waayay kadib waxa isku dayeen in ay albaabkii jabiyaan waxay xoog ku galaan kadib albaabkii jabiyeen marka ay jabiyeen waxay arkeen horta markii ugu horeyso horta argagax ayaa horta booliskii ku dhacay waayo marka hore waxa ay filayeen waxay ahayd in meeshan dagaal uu ku jiro oo labada waalidna ay istagaalayaan kaliya macnaha dil uusan meeshan uusan ka dhaceynin aba uusan ka dhicinba kadib adiga al-umuum booliskii marka ay soo galeen waxay arkeen dhiig halkaas yaalo xaaskii Shanaan oo runtii dhiig baxaysa oo runtii marka ay u tageen naf aysan ku jirin ko waxa uu sameeyay xaaskiisa wuxuu ku sameeyay horta waa uu ceejiyay marka uu ceejiyay kadib nafta ka baxday haddana waxa uu isticmaalay torrey iyadoo xubnihii ida macnaha gabadha dhimatay oo runtii xubinteeda uu jarjaray oo runtii macnaha waxyaabo runtii halkan lagu soo koobi karin iyo sawirada oo runtii aan social media loo isticmaali karin dartii runtii sawirro xun ayaa halkan laga soo tabiyay kadib booliskii waxay isku dayeen inay raadiyaan Caris White meesha waa ay ka waayeen xoogaa qolka dambe marka ay galeen waxay arkeen labadii gabdhood ee yaryaraa Bella iyo Celesta oo 4 sano jir iyo 3 sano jir ahaayeen ayagana meydkooda meesha laga arkay ayagana dhiig baxayo oo ayagana waxa ku jirkooda waxa ku yaalay nabaro runtii aad u naxdin badan oo torrey ku yaaleen
runtii ilmo yar oo waxba aanan galabsan in tooriil lagu dilo dhiig baxayo runtii waa arrin uu ku ah waddanka Mareykanka inkastoo waddanka Mareykanka dhacdooyin noocaas oo kale ay ka dhacaan haddana waxay ahayd mid kamid ah dhacdooyinka la yaabka lahayd ee ka dhacay waddanka Mareykanka booliska waxay isku dayeen waxay fahmeen in Karis uu san meeshas uusan ka dheereen wuxuu isku dayay in booliska uu ka cararo uu ka boodo darbiga laakiin maysan u suurtagelin isla boolis kale banaanka jooga ayaa lala hadlay sida ayaa lagu soo qabtay Karis xabsiga ayaa la geliyay xabsiga markii la geliyay kadib waa la wareystay sababaha kugu kalifay maxay tahay lahay in xaaskaada aad gowracdo aadna disho caruurtaadan sidoo kale aad ku darto waxyaabo uu kamid ah uu sheegay waxa kamid ahayd in xaaskiisa runtii uu aad u jeclaa xiriir hoosana uu gabadhaas uu la bilaabay maadaama buuqooda uu aad u batay Shanaan wuxuu isku dayday ama xaaskiisa isku dayday in caruurta ay ka wadato asigana uu sheegay in haddii ay wadan lahayd caruurtiisa uusan dib u arkeynin sida la ajligeedna ay ku kaliftay in xaaskiisa uu nafta u dhaafiyo xiriirlayaashii macnaha dacwadda baaraysay waxa ay ku xukumeen horta ninka dilaaga ah xabsi daa'ina iyo in magdhaw uu siiyo gabadhii uu qabay Shanaan Kadri oo iyadan macnaha u geeriyotay dhaawacii uu gaarsiiyay ninkeedii sheekada halkaas ayaan kusoo gabagabeynayaa wabillahi tawfiiq